يوسف محمد ورسامي ayaa sida uu sheegtay madaxweynaha aan wali la dhaarin maamulka cusub ee lagu magacaabo Xiriirland. Maamulkan ayaa horay looga dhawaaqay degmada Galdogob ee gobolka Mudug isla markaasna xiriir la leh dawladda federaalka ee Soomaaliya. Yusuf Maxamed oo haatan hogaamiyaha maamulka Xiriirland ayaa maanta kormeeray goobaha kala duwan ee ganacsiga isla markaasna kulamo gaar ah la qaatay odayaasha dhaqanka ee degmada. Yusuf Maxamed Warsame ayaa sidoo kale booqday saldhigga guud ee General Cabdi Xamiid isagoo markaasi khudbad dardaaran iyo dhiirigelin isugu jirta u jeediyay ciidanka Xiriirland ee halkaasi degan. maamulada aanu deriska lahayn waa wargaarsi waanu isku filannahay Soomaha waanu isku filannahay waxaanu qabsanaynaa xafiisyadeenna waxaanu samaysanaynaa gobolladeenna waxaanu samaysan doonaa degmooyinkeenna waxaanu gaari doonaa sida maamulada kale ay u gaareen horumar xaq baan u leenahay cid naga hor istaagi kartaa ma jirto waxa aad tihiin xooggii shacabka Xiriirland waxaad maanta u taagantihiin iyo waxaad berri u istaagi doontaan waxaad ka shaqayn doontaan amniga waxaad ka shaqayn doontaan horumarka waxaad ka shaqayn doontaan dhismaha wax kasta oo bini'aadanka Xiriirland iyo guud ahaan Soomaaliya u baahan tahay waa inaan gacanta la wada galnaa anigu waa idin dhex taagnahay habeen iyo maalin waa idinla jooga haddii alla idmo halkaas baanu insha Allah ka bilaabi doonaa xarunta Xiriirland waxay noqon doontaa gobolka Mudug Gaalkacyo waanu guuri doonaa insha Allah mardhow markaan magaalada dhamaysano dhanka kalena isimada iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee degmada Galdogob ayaa markaasi hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyay Yusuf Maxamed Warsame oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha aan wali la dhaarin ee maamulka Xiriirland. marka uu horeysa 14 boqolkaad ku soo dhaweynaya aniga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Cismaan Cabdi ilweyn baa la yiraahdaa waa bareera mahmadooto madaxweynaha Xiriirland oo hadda meesha taaganna boqol baa soo dhaweynayna waxaanu leenahay midda maanta joogta oo meesha ka dhacaysa waxa weeye ka dhacu nafdawa kureeyo u rarayso وهرجشي وهرجليسيا دتك ماشي تشوغانا وي gudoojiye guurtiga 12 sano haystay baana aad banaana wax la iga weydiiya ogolaaday waa raacday waa la ogolaaday madaxweynaha boqol badbaadsada aad iyo dawladda assalaamu alaykum waxaan ku salaamayaa xafladda salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha Xiriirland aad iyo aad baan soo la shaqeynaynaa shacabkan waxaan leenahay taageero iyo madaxweynaheena iyo horumarkiina assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Axmed Daahir Saal Shaaciro warbaahinta caalamiga SBC degmada Galdogob.